dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida sida aanu la socono muddooyinkii u dambeeyay waxa ay kala taagnaayeen meelo halis oo ku saabsan arrinta tubta doorashooyinka ee Soomaaliya. wixii xilligaasi ka dambeeyayna markii uu burburay shirkii Afisyooni waxaa soo baxay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya 12 bishan Abriil ay u codeeyeen in muddo 2 sano gudaheed lagu qabto doorasho qof iyo cod ah. waxaa lagu tilmaamay muddo kororsi siloon ama dadban oo ay sameeyeen baarlamaanka federaalka. madaxweynaha ayaa saxiixay sharciga jihaynta doorashooyinka oo isna la soo saaray si degdeg ah ayaa loo arkayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saxiixidda qorshahan ama sharcigan jihaynta ee doorashooyinka. xilligaasi wixii ka dambeeyay waxaa bilowday in beesha caalamka oo saameyn ku leh arrimaha siyaasadda ee Soomaalidu ay si weyn u falanqeynaysay xaaladda Soomaaliya. waxay sheegeen in dib u eegi doonaan cilaaqaadka ay la leeyihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qaadi doonaan tallaabooyin dheeraad haddii aan laga laaban muddo kororsiga laguna soo laaban heshiiskii 17 Sebtembar. shalay kulan gaar ah oo dhex maray madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wakiilada caalamiga ee wadamada lagu magacaabo C6+ waxay isku raaceen ama isku afgaran waayeen iraahdee dhammaan dadaalada la xiriira arrinta doorashada. dowladdu waxay codsatay in lagu taageero muddo kororsiga. beesha caalamkuna waxay sheegeen inaysan suuragal ahayn Soomaaliya inay xilligan qaado muddo kororsi ay sameeyeen hay'adaha dowladda oo iyaba laftigooda sharciyadoodu oo xilli hore dhamaaday. marka la eego meelaha la kala taagan yahay iyo sida xaaladda magaalada Muqdisho ay tahay dadka Soomaaliyeed waxa uu muuqda maalmo adag oo la soo maray inay halis tahay in dib loogu laabto si fudud. waxaa la isweydiinayaa dadka Soomaalida hogaamiyashoodu goorma ayay garan doonaan waxa ay tahay inay wadar uga shaqeeyaan. 1991 Soomaaliya waxa ay soo martay maalmo adag oo siyaasadeed. ugu dambeyn waxa ay kalifeen dalku inuu cagaha la galo dagaalo sokeeye. boqolaal kun oo Soomaaliyeed ayaa ku geeriyooday colaadii sokeeye ee ka dhacday Soomaaliya. dowladnimada ayaa ku burburtay. wax kastana waxa laga soo bilaabay meeshii ugu hooseysay. dhinac kasta oo ka mid ah dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu waxa uu naawilay in uu maruun isagu qaato talada dalka. naawilidaasi waxa ay kaliftay Soomaaliya 30 sano inay u kala qoomnaato hogaamiye kooxeedyo aan is-il buuxin karin ama midba kale uusan ka awood badan karin. taasi waxa ay kaliftay in dalku uu ka mid noqdo dalalka ugu saboolsan ee dunida, noqdo dalka dunida ugu dibdhacsan, dalka dunida ugu musuqmaasuqa badan, dalka ugu amniga daran ee dunida. dadka Soomaaliyeed gaar ahaan hogaamiyaasha waxa ay ku tahay maalmo adag oo siyaasadeed iyo mustaqbalkoodaba. haddii 1991 hogaamiyaashii Soomaaliyeed ee joogay lahaana qaybaha kala duwan ee bulshada ay dib u arrimin waayeen dowladnimadii Soomaaliya ee xooganayd 2021 mahalis weyn oo kale ayaa muuqata oo ku wajahan in dib loogu laaban karo marxalad dagaalo sokeeye ay sababi karaan. hogaamiyaasha kursiga isku haysta kuwa doonaya kursiga inay mar kale ku fariistaan ee Soomaaliyeed iyo kuwa ku fadhiya ee doonaya inay sii haystaanba waxa ay ku tahay wax weyn oo ummadda Soomaaliyeed ay ku eegayso marxaladda dalku ku sugan yahay sida danahooda khaaska ay uga horumarinayaan danta guud iyo inaysan wajahaynba xaqiiqada ah in dalkan ay joogaan uu yahay midka ugu saboolsan ugu musuqmaasuqa badan uguna amniga daran ee Soomaaliya. in ka badan 23,000 oo ciidamo shisheeye ayaa ku sugan Soomaaliya. haddana marka la eego gudaha Muqdisho waxa ku sugan boqolaal maleeshiyaad ama ciidan ah oo Soomaaliyeed kuwaas oo iska soo horjeeda ama loo diyaarinayo ugu yaraan in kursiga lagu gaaro. wiilka Soomaaliyeed ama gabadha Soomaaliyeed ee 20 jirka ahi ee maanta la doonayo mar kale in kuraasta lagu fadhiyo oo lagu sii haysto ama lagu qabsaday waxay ka dhigan tahay kuwa mustaqbalkooda 20 sano ee dagaalada sokeeye ay socdeen iyana ay ku soo biireen dunida wax badan aysan xog u haynin waxa dunidu ay kala hiigsanayso. waxa aad la isku weydiinayaa ma jiri doonaan dad Soomaaliyeed oo ka dhiidhiya marxaladda hadda lagu jiro isla markaana qaata doorka lagu badbaadin karo Soomaaliya oo horumarkeeda looga shaqeyn karo. dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan waxa ay dareemayaan walwalka ku saabsan xaaladda halista ama kala guurka ee xilligan la joogo. hogaamiyaasha Soomaalida ee siyaasaduna uma muuqdaan kuwa ka soo muuqdo tanaasul siyaasadeed oo ku wajahan marxaladda dalku uu ku sugan yahay. qof kasta oo Soomaaliyeed waxa la gudboon inuu marxaladda taagan ka qaato ugu yaraan qaybtiisa ku wajahan in dalkan laga samatabixiyo marxaladda uu hadda ku jiro loona jiheeyo si dhammaan dhinacyada oo dhan ay ugu qanacsan yihiin ka qabsoonto doorashooyin la wada ogol yahay. Soomaaliya